السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وأيدي سلامي إلهي وحان كجرجينا يا عمري دير عبادة دميسترني عفماد من ملك استودوني ذا جوكتان كسو دوادا channel كس أنفع أديكو آدي هاتسن وحارب ما تلا إن سو حسوسيو وحي أجوه هريي إلهي أدونك أبوري سيدا دمانتي لصعنا وأجنا هاي وح إلهي أجوه هريي إلهي أبوري إنه أها قلنك معناها قلنك أولي هاي إشقاد أو قلنك قبتنا dhammaanteen way naga dhacdhacsan tahay taas waxay noo cadeynaysaa in ay muhiim tahay in wax walba la qoro waayo qalinka markii ilaahay uu abuuray qalinkii ayaa wuxuu dhahay maxaa qabtaa markaas ilaahay wuxuu dhahay qor markaas qalinkii wuxuu yiri maxaan qoraa markaas qalinkii wuxuu yiri wax walba qor soo qoraalka waa muhiim marka isweydii adiga maxaan qoraa maxaa qortaa waxa muhiim ah inaad qortid wax kasto aad ku haminayso wax walba aad ku haminayso wax walba aad rabtid inaad qabsatid dunida wax walba aad rabtid inaad aakhira ka gaartid tusaale ahaan kulligeen sidaan wada ognahay jannada ayaan ku haminaynaa jannada kaliya ma ahan jannatu firdaws oo ah mid ugu sareyso inaan wada galno balse haddii rabna inaan taas gaarno waa inaan qorsheysano waxaa jira mahmaah ingiriis ah oo dhahayso if you fail to plan you plan to fail macnaheedu waxa weeye haddii aad ku guul dareysatid inaad qorsheysatid waxaad qorsheysay inaad guul dareysatid marka sidee haddii aad qorshe leedahay qorshaha marka waa inay ku qoran yihiin qorshaha oo ah 10 sano soo socdo wax aad rabtid inaad gaartid waa inaad qortid nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu dhahay dunida uga fakara sidii inaad bari dhimanaysid oo kale balse ugu noolaada sidii inaad waligii noolaanaysid oo kale markii laga soo tago wixii ahaa aakhirada oo ognahay kulliyan inaan jannada rabno dunida marka qof walba waa u qaas waxa uu rabo inuu ka gaaro wuxuu ku haminayo wuxuu rabo inuu ka guuleysto adiga waa muhiim inay ku cadahay waxa adiga rabtid ma aha wuxuu hebel iyo heblaaye rabaan ma aha wuxuu heblaaye iyo hebel ay haystaan ma aha heblaaye iyo hebel waxay ku haminayaan ayaka ma ogid waxa ilaahay ugu talagalay iyo waxa calafkooda iyo qadarkooda ah ma ogid waxa khibradoodii aqoontooda ah ma ogid waxa ayaka awoodaan ma ogid inuu ilaahay la kulansiin doono inta ku mashquulaysid qof kale oo isleedahay hebel iyo heblaayo waxay qabsadeen oo kana qabsanaya ka fakar adi isku laabo because ilaahay qof walba adduunka uu keenay gaal iyo muslim madow iyo cadaan ma cala indha yar qolo kastaba shakhsi kastaba wuxuu leeyahay wax asaga qaas u ah waxaas qaaska u ah qof kale haysanin laakiin dadka badanaa waxay ku mashquulsan yihiin qofka kale ayaka isma bartaan ayakana isku mashquulaan marka adi isbaro adi isku mashquul adiga waxaad rabtid ogow ka bacdina qorsheyso oo qor waa intaas iyo maanta intaan jeclaystay inaan idila wadaago waa anigoo ah walaashin shukrim aadan kusoo dhawaada mar labaad mar saddexaad mar walba channelkiis anfac adinkoo aad iyo aad u mahadsan haddii aad cusub tahay fadlan subscribe-ka ha iloobin adigoo aad iyo aad u mahadsan like-na saar comment-ka wixii fikradaada ahna hoos igu reeb aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa inoo mar dambe oo xiiso leh haddii eebaha awoodda la idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu